وزير ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo maanta shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay saameynta fatahaadaha webiga Shabeelle ay ku yeesheen deegaanada maamulka Hirshabelle isagoona sheegay in deegaano hor leh ay gaareen biyaha fatahaadaha sidoo kale gudoomiyaha maamulka degmada Mahday Axmed Xuseen Afrax oo ka hadlay fatahaadaha ayaa sheegay in go'doon ay ku jirto degmada Mahday ee gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Mahday sida aad ka warqabtaan fatahaad hal sano oo xariir ah oo ay ku jirtaa beerihii iyo dalagii iyo waxaas oo dhan inta la cunay ayay waxay joogtaa marka guriyihii inay maaragtay ay go'aan ay joogtay ability dhamay biyo noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa tilmaamay xaafadaha degmada Mahday inay halis ugu jiraan in ay galaan biyaha fatahaadaha webiga Shabeelle fatahaaduhu waxay ku hayaan inta badan dhibaato joogto ah qorshaheeda muddo badan ka hadalnay sidii xal waara loogu gaari lahaa meelaha ugu daran hadda marka degmada Mahday beerihii intay go'een ayaa magaalada go'aysa sidoo kale Jallaqsi fatahaad ayaa waxyeello gaarsiisay beledweyne sidoo kale waxaan leenahay marka shacabka Mahday muddo 8 sano aan waa go'doon jidku furan yahay laakiin waxaad moodaa go'doon rabaani inay ku jirto horumarkii uu gaabiyay caafimaadka uu gaabsan yahay fatahaadi waxyeelaysay waxaan halkaan abiil ugu dirayaa deeq bixiyaasha iyo ummadda Soomaaliyeed iyo kuwa ka soo jeeda degmada Mahdayba il gaar ah in degmada Mahday gurmad ay u baahan tahay oo dhan kastaba ah dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa faahfaahiyay saameynta anyax uu ku yeeshay beeraleyda deegaanada maamulka Hirshabelle ay xusan bilihii hore meelihii oo waxyeelay waxa kamid ah degmada Beledweyne waxa kamid ah Buulaburte waxa kamid ah Mahday intaasba ay waxyeelay ayuu gaarsiiyay xogtii iyo raboortii aan gudbinay ay kamid ahayd qaybta dambe ee xog ururinta waxa ay gudbiyeen waxba kama jiraan maxaa yeelay waxa cadeyn u ah roobkii markuu daay raadadkii uu ka tagay ayaxi iyo gacantii ayaa dib u soo dhalatay sida aan la socotaan degmada Maxaas waxa gabi ahaanba beerihii iyo daaqsinkiiba cagta mariyay ayax Cabdiraxmaan Xuseen Cumar wadani warbaahinta qaranka magaalada Jowhar.